muuqaalka had soo aragtay qaabkee loo sameynaya kii maalmaha hore waa ka duwan yahay kii maalmaha hore waxa ahaa sawirka ama video kor la saaraya ayaa la dhaqaajinaya laakiin hadda midkan waxa waaye videogaas ayaa waxa lagu sameynaya animation loo sameynaya ama effect lagu daraya VN ayaa soo kaxsinaynaa waxaan isticmaalaynaa laba shay keyframe iyo effects ayaa isticmaalaynaa tusaale videoga aan hadda soo daawaneysay meesha lagu sameeyay aan ku tusaya meesha lagu sameeyay waa kan qaybtan hore waxa la isticmaalay halkaas ayaa lagu dhuftay video saddex baarti ayaa loo kala jibiyay baartigan ayaa lagu dhuftay kadib effects ayaa lagu dhuftay waa kana marka qaybtan hore ayaa la isticmaalay oo madowga ah haddii aad ku dhufato waa kaasa marka halkan waa ka dheeray kartaa waadna ka gaabi kartaa kadib sax ayaa saaraysaa qaybtan dambe la imaaday lagu dhuftay asigana effects ayaa lagu dhuftay qaybtan ku xigta lagu dhuftay waa kaasa marka kadib sax ayaa la saaray qaybtan dambena labadan shay qoraalkan oo korka imaanayo sameysmaayo iyo midkan waxa la isticmaalay keyframe ku tusaya marka sida loo isticmaalayo balaas ay leedahay halkaas text ay soo dooranaysaa aniga hadda waxa u baahanahay midka hore mask ayaan dooranaya text caadiga waa soo dooran kartaa qoraal waa ku qoran kartaa marka tusaale ahaan barawi ayaan qoraya waa kan kadib sax ayaa saaraya qoraalka marka labada farood ku soo weynay qoraalka sidan oo kale kari keyframe waa inaan ku soo daro qaybta bilowgii balaas ku dhufo marka halkaas balaas ku dhuftay banaanka bixi videoga banaanka bixi waxaad soo siko kadib meesha ku soo celi waa in animation waa soo gelisay waxaad arkaysi ka haddana keyframe u sameey waxaad arkaysi ko keyframe out u sameey marka banaanka bixi sidaas ayaa loo sameeyey marka waa kana marka waa kan sidaas ayuu noqonayaa kanna waa la mid banaanka ayaa laga keenaa asigana waa ku mahadsantahay daawashada daawatay muuqaalkan fadlan la wadaaga asxaabtaada haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xiran janalka Barawi waxaan kaa codsanaya inuu soo fiirso maxsanid